agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa tababaro soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland kuwaasi oo sameyn doona sahan gundhig u noqon doona wajiga labaad ee mashaariicda laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF. Ujeedada guud ee sahankan ayaa waxaa lagu qiimeyn doonaa heerka nolosha dadka reer Soomaaliland ee laga maalgelin doono mashaariicda SDF si loogu saleeyo baahiyahooda. Tababarkani waa 4 maalmood oo u dambeeyay uga socday shaqaalaha Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Ayaa ugu horreyn waxaa ka warramay waxyaabaha ka faa'iideen intii uu tababarkani socday. Yaxya Cali Obsiye oo kamid ah shaqaalaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland. mudane agaasimo guud anoo ku hadlay magaca shaqaalaha wasaaradda ee halkan muddada 4 maalmood tababarka ugu jiray sahankan perception baseline-ka perception survey-ga halkan shaqaaluhu waxay muujiyeen firfircooniinta ay meesha joogeen. halkan shaqada 8 aroornimo ilaa iyo 5 galabnimo hawshaas waxay tahay hawl xiriir oo socota oo joogsi lahayn. waxaan filayaa markaa waxa kale laga sugayaa waxa weeyaan sahanka iyo xogtiisa sidii aan maganaysay u soo ururin lahayn isla markaana wax dadka iyo dalkaba anfaca ya aanu xog noocaas u keen lahayn oo aan halkan ballan qaadayno in aanu intii awoodayada ah aanu ku dadaalno sidii loo heli lahaa xog sugan oo ka tarjumaysa xaaladda ay ku sugan yihiin shacabku. intaasi kadibna macallimiinta bixinayay tababarkan ayaa uga mahadceliyay shaqaalaha tababarkan qaatay sidii fiicneed ay uga qayb qaadanayeen muddadii uu tababarkan u socday. sidoo kalena waxay sheegeen in hadda diyaar u yihiin inay soo ururiyaan dhammaan xogta looga baahan yahay. Really appreciate it, and we have really appreciated your participation, your full participation over the last 4 days, so that we get you ready and you are ready to then take on the field work, either the quantitative or the qualitative field work. ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Mubarak Cabdullaahi Ibraahim Daljir ayaa tababarkani soo xiray waxaana agaasimuhu ku dardaaray shaqaalaha sameyn doona sahankan inay soo gudbiyaan xog dhaba oo ka turjumisa baahiyaha waddanka. maanta waxaan soo gabagabeynaynaa tababar inoo socday muddo 4 cisho ah oo ku saabsanaa in sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo wajigiisii labaad uu hadda bilaabmayo loo sameeyo sahan gundhig u noqda. waxaad la socotaan waxa soo gabagaboobay muddo dhaweyd wajigii koobaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland. haddana waxaynu gudagalaynaa oo shaqadiisu ay socotaa wajigii labaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland. sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo ka jawaaba baahiyaha iyo mudnaanaha inoogu qoran qorshaha horumarinta qaranka oo maalgelinaya wadaagayaal badan ama sectors badan oo kamid ah sectorska uu ka kooban yahay qorshaha horumarinta qaranku. waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado mashaariicda la maalgelinayo ee lagu maalgelinayo lacagta loogu talagalay in wax lagaga bedelo dadka reer Soomaaliland noloshooda. waa in la hubiyaa mashaariicdaas inay wax ka bedeleen iyo inaan waxba ka bedelin. si taa loo ogaado waxaa lagama maarmaan ah in inta aan mashaariicdu bilaabmin sahan la sameeyo. sahankaasi markaa wuxuu sugayaa oo uu qeexayaa halka maanta la taagan yahay. marka mas'uuliyad weyn baa idin saaran, mas'uuliyad weyn oo ah xogta aad keentaan iyo sahanka la sameynayo xogta soo urursaan ee ka soo baxda in madaxweynaha waddanka iyo golaha wasiirada iyo wasaaradaha ku shaqada leh arrintan iyo qaadaan bixiyaasha ama saaxiibada Soomaaliland ee Soomaaliland caawinaya ay ku go'aan qaadanayaan. halka waxaad ka garanaysaa haddii xogta soo ururnaysa aad ka soo ururnaysa fiilka haddii madaxweynaha Soomaaliland ku go'aan qaadanayo waxaad garan karaysaa markaa shaqadaad haysaa miisaanka leedahay Soomaa. marka waa inaanad is yaraysanin oo aanad is odhanin kuwashadeeno bad buuxinaysaa. waa inaad dareento inaad mas'uuliyad weyn hayso oo aad qaranka u hayso. haddii aad soo gudbiso xog aan ka turjumaynin nolosha dhabta ee dadka oo aanad xogta la soo ururinayo iyo toolka la soo buuxinayo aanad si daacadnimo iyo hufnaan ku dhisantay u soo buuxinin waxaad ogaataa inaad khiyaameynayso dadka reer Soomaaliland. marka runtii mas'uuliyad baa ina saaran
aynu mas'uuliyadda muxuu ahaa si xilkasnimo ah aynu gudano